بسم الله ما leedahay calaamadahan hadii aad leedahay calaamadahan iyaga ah waxaad samaysaa sida tan aan ku sheegayo wixii aad dareentana waxaad soo wacdaa kana soo xiriirida page-ka Al-Shifa like saaro haduusan like ku saarnayn kadibna ku soo dirso waxa aad dareentay maxay yihiin calaamadaha iyo xanuunka aad ka sheeganayso dadka qaar baa waxay i weydiiyaan mar walba waxaan leeyahay wadna xanuun fara badan wareer madaxa ah dhinac xanuuno iyo gacan imayda waxaan leeyahay wadna garaac aad u badan madax xanuun aan tiraba lahayn ama xaddiba aan lahayn dhinac mar walba ay xanuuna waliba qaar neerfa igu noqday iyo gacan imayda muxuu yahay xanuunku muxuu yahay sababta keenaysa xanuunkan isaga ah gacantaada midigta soo qaad kow inta aadan far dhaqaajin shuruudaha aan ku sameeynaya raac kadibna bismillah dheh ilaahay idinkii uu ka buraya samee sida tan waad ku caafimaadaysaa waa talo kaaga timi bahda Al-Shifa khaasatan maamulaheeda walaalkin Abdul Hakim Allah idinku anfaco anigana ajr Allah iga siiyo maxaan sameynayaa kow inta aadan ficil kala sameyn weysayso waa tajribo aan sameeyay Al-Shifana ay sameysay dad badan Allah ku caafiyay walow dad qaar markay isdhahan samee telefoonadu ay ka dhaceen gacmuhuna ay daaleen sadarteed inta aadan sameyn soo weysayso inta aadan far dhaqaajin weysayso musqusha gal ama baafa gal soo weysayso markaad soo weysaysatana soo fadhiiso maxaan sameynayaa raac qaabkan ku sheegayo gacantaada midigta taag waa sidii aan u sameeyay walaalo fara badan kuna caafimaadeen adigana ku dayo kuna caafimaad insha Allah taala gacantaada midigta soo qaad saddexda farood ee ugu horeeyo saddexda farood oo aan ka hayn fariirada iyo suulka ayaa taagaysaa waxaad oo midigta waxaad saaraysaa naaska bidix hoostiisa maxaad akhrinaysaa akhri ducadan ilaahay idinkii xabiibkaaga ayaa ku dardaarmay cadow iyo shaydaanna kuma arkaayo maxaad akhrinaysaa iga daba akhri a'uudhu bikalimaatillaahi taammaati min kulli shaytaanin wahaamah wa min kulli aynin laamah waxaad ku celinaysaa saddex jeer wa min kulli aynin laamah wa min kulli aynin laamah wa min kulli aynin laamah ayaad leedahay bismillah hadana waad ku celinaysaa a'uudhu bikalimaatillaahi taammaati من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة سدح جر آيات كهول علينا إلا تدوجر قدر كايساقة دعاء waxay soo aroortay saddex laakiin xanuunka qofka uu soo qabanaya kuna siibadi sifo uu u xanuunsado shadaadinta ku dhibayso inta markaad akhriso ducada waxaad akhrinaysaa saddex jeer waxaana ka horeysiinaysaa bismillah saddex jeer ayaa ducada markaad akhriso kadib waxaad akhrinaysaa hadana indhaha ayaad isku qabanaysaa marka labaad waxaad sameynaysaa indhaha ayaad isku qabanaysaa waxaad leedahay sida tan sifxan ila soco waxaad leedahay sida tan waxaad akhrinaysaa hal aayada meeqa jeer 7 jeer waxaad sameynaysaa sida tan wa min sharri hasidin idha hasad mar walbaad akhrisana ayaad leedahay ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد مركا هذا خرج صدح جر انت كلا هلا برسراع مركا ومن شر حاسد إذا حسد الله عن سوق قادم ومن شر حاسد إذا حسد 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 مركا تكحليسو محاد كلا اخرنسا وقيبت اللبات قيبت صدحات محاد سمينسا عندها يسكو قبانيسا كدبنا waxaad ku xamdinaysaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala xamdi u qalmo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kadibna waxaad ku salinaysaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam marka inta aad ku salido oo nabiga saligiisa aad dhamayso ayaa waxaad leedahay Allah waxaan hay adoonkaaga hadaad qurux aan leeyahay Allah adaa isiiyay hadii aan leeyahay hantina Allah adaa isiiyay ilma hadii aan leeyahay Allah adaa isiiyay Ilaahayow cadawga jirkayga ku jira isha noocyada kala duwan adiga arko u jeedo الله أذانك هوس قلي الله يسي مغن أف سوماليا كدعيس
sababta aayadaha quraanka waxay ahaayeen waman yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuh ilaahay baa qofka mu'min ku filan waxaad leedahay ilaahu haday ka timi ishaas nooc xasad ah oo leeydiideen wax aad siisayna ilaahay oo iga qabo haday ka timi ilaahay oo mid jacayl xageedana allah iga qabo oo baabi'i ta ku jirta wadnahayga ta degan ee mar walba wadnaha i jiidaysa mar walbana dhabarka ay xanuujinaysa mar walbana madaxa ay xanuunaysa dhinacana meedkayga dhigaysa allah iga qabo ta murqaha iga degan ee salaada iyo soonka shaqada iyo wanaaga iga hortaagan igana awdasana allah iga qabo ta maskaxda iga degan ducadu waxay ahayd asaabat علما فضيعت أو أصابت عقلا فبللت بها الدعاء marka ta iga degan qalbiga waxaan ka madaxa iyo maskaxda oo cilmiga ibartana iga dhumisay ama ihilmaansiisay kan kalena aan ii tawjiihinayn allah iga baabi'i eriyada kuwa ugu wanaagsan iyo kuwa ugu macaan ilaahay ku bari maxaad ku soo gabagabeynaysaa kadibna salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam inta marka aad sameeyso maxaad dareemi kartaa gacanta oo ku daasha inaad qayliso wadnaha ku sii xanuuna madaxa aad ku xanuuna dhabarka oo ku xanuuna telefoonka oo ka dhaca iyo waxaad sameyn kartaa oo kale dhidid farbadan inuu ka yimaado kawbiye farbadan inay ka timaado inta marka aad sameeyso ilaahay idankiisa laga badi waxaad sameynaysaa maalintii 2 jeer maghribka iyo subaxii salaad subax kadib iyo maghribka kadib ayaad inta sameynaysaa biidilaahi tacaala wixii aad dareento soowac lambarada shaashada ku qoran waliba lambarka khaaska aan ugu tala galay in walaalaha ay talooyinka kala socdaan ee aan u jeedinayo biidilaahi tacaala mar walbo hadii Allah wada la aan idmo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo idmo lambarka khaaska aan ugu tala galay ee si toos mar walbo WhatsApp-ka iyo email iyo khadka mar walba aad uga soconaysaa insha Allah tacaala aad baad u mahadsantahay walaalkayga qaaliga iyo walaashayda qaaliga dhamaantiin waa alshifoodan la guuleysta cadawgeena hajabo biidilaahi tacaala daawa caafimaad qabto iyo tusaale wanaagsan biidilaahi tacaala farxad baan idinku ogahay maanta wixii ka dambeeyana cusri Allah idimo tuso wanaag waxaana ka ahayn fi amaanillah